daawadaha qiimaha badan waxaa kusoo dhawaata casharkii aan ugu talagalnay maanta inuu journalka ka baxo isomerism and preparation of alkenes. Marka daawad waxaan kaa codsanayna haddii aad journalka cusub tahayna subscribe ta saartid kumaleelkana furo si casharada xiga ay kugu soo dhacaan. daawade waxaan rabnaa inaan ka hadalno wax la yiraahdo hore waxaan uga soo hadalnay wax la yiraahdo isomerism. Isomerism waxaan ogeyn kaarboonka koowaad ilaa kaarboonka toddobaad waxaan ku heli jirnay qaacido. haddaa xasuusatid qaacidadaas ee 2 power n minus 4 plus 1. qaacidadan waxaa iska lahaa kaarboonka ilaa kaarboonka toddobaad. tusaale kaarboonka sideedaad oo ah octane waxaan soo sheegnay in lagu heli jiray 2 power n minus 4 plus 2 plus 2. kaarboonka sagaalaad waxaan soo sheegnay in lagu heli jiray isagana 2 power n plus 3. kaarboonka tobanaadna waxaan ogeyn in lagu heli jiray wax la yiraahdo kaarboonka tobanaadna waxaan ogeyn in lagu heli jiray 2 power n minus 4 plus 1 plus n. so marka qaacidadan mid kasta qaaciduu leeyahay waa taas halkaas ku taala. waxaan rabnaa daawade alkenes korka marka la hadlayo chain isomerism iyo position isomerism iyo geometrical isomerism saddexdan qaab ayaa loo muujin karaa. marka for example chain isomerism-ka waxaan naqaanaa horta marka loo fiiriyo hadda meeshan butene oo kale waa molecular formulada waa 4H8 molecular formula oo isku mid laakiin structure-ka inta yaala isku mid miya. kan muxuu ku dhageyn kaarboonkood muxuu noqonaa waa kana magacaabisiis muxuu noqon doonaa tusaale ahaan oo kale 1 butene uu noqonaa. kanna wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo 2 butene muxuu noqon doonaa 2 butene. sababta waxaa la tirsanaa waxaa waaye kaarboonada tirsanaya adiga isomerism waxaan tirsanaya kaarboon tusaale 1 2 3 4 kaarboona meesha taal. okay 2 butene markaan kule kaarboonka labaad double bond ugu yaala marka 2 butene. kan muxuu noqonaa horaan usoo jeeday kan oo kale kaarboonkooda ku dhigay 1 butene uu noqonaa kan muxuu noqonaa 2 butene. so marka meeshan waxaa kaaga cad in chain isomerism-ka marka loo fiiriyo xagga structure-ka marka la fiiriyo waa kala duwan yahay. tusaale structure-ka inta yaala iyo structure-ka inta yaala they are not same isku mid ma aha. marka meeshaas waa fahmi kartaa. haddaan position of isomerism oo kale haddaan meeshaan kala tago ustaad position waa booska in la bedelo. tusaale booskan hadda double bondiga oo yaalo kaarboonka koowaad yaalaa waxaa la geenaa kaarboonka labaad kaliya waxaa la waxaan position isomerism la in loo kala bedelo. tusaale meeshaan double bondiga yaalay kaarboonka koowaad yaala kaarboonka labaad la geeyay. that's waxaan waa iska fudud yihiin in mataqaanaa waxay u baahan tahay daraasad aad samaysid. geometrical isomerism waxaa jira wax la yiraahdo erey la yiraahdo cis oo ah same isku mid iyo trans oo ah kala duwan. tusaale ahaan oo kale inta marka loo fiiriyo waa isku mid sooma waxaa ku dhagan methyl waa cis isku mid waa. inta markaa fiirisana waa maxay waa cis isku mid. okay geometrical mid waxaa jira la yiraahdo trans waa different means trans waa maxay different. tusaale inta hydrogen atal iyo methyl inta dhinaca wax xiga muslim they are different waa kala duwan yihiin sax. inta dhinaca xigana waa maxay waa kala duwan yihiin maxaa waaye different. anaha waad ina fahamtaan jeclahay meeshaan marka daawadaha qiimo badan oo haddii casharka uu kugu cusub yahay intaas kor haddii hydrogen kan intaas kor ku dhigan way kala duwan yihiin intaas ku dhigan kala duwan. si kale haddii ay noqdaan CH3 haddii inta kale ku dhigan inta kale ku dhigan waa different. laakiin hadday dhacdo laba hydrogen isku mid inay isku dhigto laba methyl isku mid hoos inay ku dhigto cis ayaan u qaadanaynaa geometrical. hadhow haddii lacag lagu qoro waxaana ma cis ama waxaana trans ina kala saari kartaa muhiim ah.
marka daawadaha qiimaha badan oo casharkii ayaan weli ku guda jirnaa waxaad naga daawanaysan waa janalka masrax official markasta waxaan ku leeyahay janalka masrax official daris la noqayaan ku leeyahay marka ciwaankan wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo general methods waa hababka guud of preparation of alkene waxaan rabnaa daawada alkenes wax la yiraahdo inaan diyaarino wax la yiraahdo alkenes inaan diyaarino erga dehydration waxaan meesha ka saaraynaa alcoholka meesha ku jira inaan ka saarno waxaan rabnaa inaan alcoholka meesha waa ka saarid hydration biyaha meesha laga saaraa marka waxaa laga saari doonaa meesha biyaha ku jira marka daawada dehydration waxaan leenahay marka in this process nankan alcohol is heated waxaa la kululeeyay alcohol ayaa la kululeeyay in the presence of sulfuric acid or phosphoric acid sulfuric acid aan meesha taalla aad u jeedid ayadu wax kala ma ahan waxaa waaye waa catalyst waxay dedejinay falgalka marka waxaan ka saaraynaa meeshan biyaha ku jira meeshan ka saaraynaa horta tusaale OH kan iyo waxaan saaraynaa hydrogentana meesha ka saaraynaa marka OH hydrogen ka saarno carbonkan saddex gacan oo lahaay meesha saddex gacan carbonka afar gacan oo lahaay laba gacan oo kamida waa la saaray waxa u hartay gacan iyo gacan oo hartay laba gacan marka waxa aan diyaarinayna waa maxay alkene aan diyaarinayna afartan hydrogen hal hydrogen kamida gacanta carbonkan kale kusoo dhigi doontaa marka ani waxaan leeyahay carbon meeshan waxaan leeyahay waxaan saaray intaana saaray soo maha maxaa dhici doona marka even meeshan laba hydrogen intana maxaan raaci doona laba hydrogen marka waxay noqon doontaa laba hydrogen raaci CH2 waxa double bond iyo CH2 oo ah double bond gadaal haddii rabto waxaa uga sii dartaa biyahan aa meesha ka saarta daarabtid iska dhaafi kartaa marka inta ani aan diyaarinayo maxay ahayd marka waxa aan diyaarinayo maxay ahayd marka ethene kana diyaarinayo maxaan diyaarinayo waxa la yiraahdo ethene inaan soo saaro muhiimadeyda ugu weyn aniga wax kala maysan ahayn marka waxaan inaan diyaariyo alkene oo double bond inaan diyaariyo maxaan ka soo diyaariyay OH kan hydrogentas iyo OH ka meesha ka saar haddii hydrogen iyo hydrogen la isku daro water ay noqon doonaan marka daarabtid intaan waa iska dhaafi kartaa laakiin aniga waxa aan diyaarinayo ujeedka aan waxay ahayd inaan diyaariyo wax la yiraahdo alkene inaan diyaariyo alkene waxaan ka soo diyaariyay single bond waxaan ka saaray wax la yiraahdo alcoholka meesha ku jira meesha si fiican u saaray oo biyaha ah waxaan leenahay daawade meeshan waxaan rabnaa inaan saarno dehydrogenation waxaan rabnaa inaan ka saarno biyaha inaan ka saarno halogentan inaan saarno tusaale halogenta wax kale waa Br tan waxaan saaraynaa Br tan yaa la midayn doonaa marka waa su'aal isweydiin mudan Br tan iyo waxaan saaraynaa horta iyo keedan isla saaraynaa iyo keedan intaan isla saarno tan maxaa sameynay isla saarno tusaale kan waxa waaye kan waa positive kana waa negative sababtu way isla falgeli karaan okay waxaan kaloo saaraynaa hadana OH kan iyo halkan hydrogen saar iyo halkan hydrogen hadana saar maxaa saar OH kan iyo halkan hydrogen maxaa ka dhala doona marka inta waxaa ka dhala doona carbonka laba hydrogen la socota la double bond shaqada weli waxaa la diyaarinaa la yiraahdo CH2 kusii dar maxaan saara K maxaa isku dhigan Br plus K Br plus water okay marka ani waxay ahayd waxa aan rabay inaan soo saaro maxay ahayd wax la yiraahdo ethylene aan waxaan rabay inaan meesha ka soo saaro ama wax la yiraahdo ethene markii hore meeshan ethanol taalay ethene ala sameeyay kan koowaad kan meeshan markii hore waxa ku yahay ethanol waxay ku yahay meeshaas ethanol okay masha Allah marka meesha waxaa taalay waxa la yiraahdo OH kana waxay ahayd waxa la yiraahdo catalyst
marka hadda waxaan soo saaray wax la yiraahdo ethene marka ani meesha u socdo maxay ahayd marka inaan diyaariyo waxa la yiraahdo alkene ayaan rabaa inaan diyaariyo maxaan rabaa inaan diyaariyo alkene maxaan rabaa inaan diyaariyo alkene marka in the process ananka alkyl halide ka marka la joogo alkyl halide ka is equal to in alcoholic solution million of potassium hydroxide potassium hydroxide wax ku leensa to produce maxaa la soo saaraa marka waxa la yiraahdo alkene ayaa la soo saaraa marka processkan ina fahmi kartaan jeclahay daawadaha qiimaha badan oo daawadaha qiimaha badan oo erga dehydrohalogenation waa in laga saaro oo vicinal dihalide vicinal horta processkan wuxuu ku haboon yahay inta badan waxaa loogu talagalay in lagu diyaariyo alkynka very important uu yahay oo laba step la marsiina marna potassium hydroxide waxaa looga dhigaa wax la yiraahdo catalyst marna sodamide ayaa looga dhigaa marka isagoo alkene aan hadda isticmaalayna maadaama marka potassium hydroxide ka marka double bond ana loo saaraa double bondigaas marka la rabo in la jabiyo sodamide wax la yiraahdo lagu jabinaa dabarkaas marka in this process ana conventional dihalide is equal in the presence of zinc alcoholic solution to produce waxaa la rabaa wax la yiraahdo in la soo saaro alkenes ayaa la rabaa in la soo saaro tusaalahaan kale waxaan saari doonaa hal wax la yiraahdo intaan isla saari doonaa KBr tusaalahaan kale hydrogentan aad meesha uga jeedid iyo sidoo kale waxaan isla bixinaynaa wax la yiraahdo OH kan isla saaraynaa marka OH kan waxaa soo hari doona hal Br soo hari doonta iyo double bond waxaa meeshan ka dhashay wax la yiraahdo double bond markuu ka dhashay inta waxaa ku dhajisaa waxa la yiraahdo PR meesha harta ku dhaji PR ka hada meesha harta gay PR H intana waxaa sisaa hydrogen C intana waxaa sisaa hydrogen C marka B intaan waa diyaarinay marka waxa anaga aan diyaarinay alkene waxaana meeshan hadda aan soo saarno wax la yiraahdo phenyl bromide phenyl bromide waxa la yiraahdo phenyl bromide phenyl bromide marka waxaa leenahay vicinal dihalide horta maxaa laga wadaa is a dihalide that the two halogen atoms are bonded to the adjacent carbon so vicinal wax kale laga wado carbonkan oo kow ah iyo carbonka kow waa deris maxaa ku dhigan wax la yiraahdo halogen ku dhigan waa kana halogenka kan waa maxay waa halogen so labada carbon oo deriska maxaa ku dhigan carbon waxa ku dhigan Br kan waxa ku dhigan Br ayaa ku dhigan sama so marka meeshan hadda waxa kaaga muuqda PR iyo Br marka arrinta noocan waxa la vicinal dihalide marka labadan carbon oo deriska labo ama bromine ha ku dhigto ama iodine ama chlorine ha ku dhigto laakiin labada carbon oo deriska markii halogen ku dhiga waxaan arrinta noocaas u bixinaynaa ama laba carbon oo deriska markii bromine ku dhiganta halogen ku dhigan waxa leena wax la yiraahdo vicinal dihalide waxaan dhigi doonaa wax la yiraahdo vicinal dihalide marka intaas uga soo gudbo waxaan doonaynaa daawadaha qiimaha badan oo haddii aad channelka cusub tahay inaad subscribe saartid sidoo kale gombolka afaratin isku day physical properties of alkenes arno haddii lacala lagu weydiiyo physical property list physical properties of alkenes haddii lagu yiraahdo maxaad uga jawaabi lahayd the first three alkenes saddexda alkene ugu horreeya are gases waa gas next few kuwa ku xigana are liquid so there and high membranes are solids kuwa inta badan tusaale ahaan carbon 18 wixii ka dambeeya waxa waaye tusaale ahaan kale alkenka marka laga hadlayo ethene propene iyo butene saddexaas ugu horreeya waa gases next wixii ku xiga ilaa carbonka shanaad ilaa carbonka toddobaad inta laga gaarayo waxa waaye waxay noqon doonaa wax la yiraahdo liquids ilaa carbonka ilaa wixii ka dambeeya waxay noqon doonaan wax la yiraahdo solids intaas way ka sameeyeen ethylene waa colorless gas ay leenahay alkene marka loo fiiriyo are non polar compounds ay leenahay non polar compounds ka alkenka si fiican uga soo sharaxnay hadda casharadii hore la socotay sidoo kale they are soluble alkenes waxaa lagu yaqaanaa in organic solvent uu ku milmaa organic solventiga uu ku milmi karaa sida benziinka oo kale waa la shaki inuu ku milmaayo but laakiin are insoluble in water laakiin alkenku kuma milmo biyaha ma ku milmaayo waxaa leenahay boiling point of alkenka increases wuu bataa boiling point alkenku wuu bataa with the increase
marka uu bato waxa la yiraahdo molecular mass markastoo boiling point-ga uu bato markastoo boiling point-ga uu bato waa markastoo uu bato waxa la yiraahdo molecular mass alkeniska waxa leenahay with branch alkenku markuu branch leeyahay ama side chain uu leeyahay have lower boiling point-ga soo maxay waa low waa maxay waa low waxaa leedahay daawadaha qiimaha badan waa haddaad nala socotid channelkeena subscribe saarto isku day waxa ay iloobin sidoo kale gombolaalkeena furatid like-tan inaad saartid ha iloobin uses of alkenes waa isticmaalada alkenes horta maxaa loo isticmaalaa waa su-aal isweydiin mudan ethylene waxaa loo isticmaalaa wax la yiraahdo to manufacture in lagu soo saaro wax la yiraahdo polyethylene ama wax la yiraahdo polythene wax la yiraahdo polythene iyo polyethylene ayaa loo isticmaalaa waxaan dhihi doonaa wax la yiraahdo incubation with oxygen markii oxygen lagu gubo alkene markii oxygen lagu gubo ethene waxaa loo isticmaalaa oxyethylene flame kaasoo ku habboon which is used for kaasoo loo isticmaalo for cutting metals in biraha lagu jiro sidoo kale waxaa dhihi kartaa for welding metals in biraha lagu alxamo waxaan leenahay ethene oo kale is also used waxaa loo isticmaalaa as ripening in lagu bisleeyo agent for food waa qayb ka mid ah waxyaabaha lagu bisleeyo cunada ethene ku jirta alkeniska waxaan leenahay alkeniska are used waxaa loo isticmaalaa to prepare in laga diyaariyo waxa la yiraahdo alkeniska iyo alcoholka meeshan waxaa fahmi doontaa markii aad si fiican u fahantid waxa la yiraahdo chemical properties of alkenes alkena waxaa loo celinaa alkenka waxaa laga diyaarinaa alkena laga diyaarinaa alkenka dabarkii la jibinaa waxaa soo baxay alkene marka inta badan waxaa loo isticmaalaa alkeniska in laga diyaariyo wax la yiraahdo alkenes iyo alcohol waa very important meesha inaad si fiican u fahantid waa waxyaabaha ugu duwan yahay alkene maxaa laga diyaari karaa alkene waa laga diyaari karaa alcoholna waa laga diyaari karaa marka waxaan jeclahay daawadaha qiimaha badan inaad casharka fahantay sidoo kale casharka hadduu ku xiiso geliyay inaad subscribe saarato daawadaha naga iloogin inaad nagu dhiirigelisid aad baad u mahadsantihiin casharkan iyo casharka xiga ayaa noo balan